Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada kanaalka Tarjumaad. Maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. Wiil ka soo jeeda qoys faqri ah, dadkuna ay ku barteen wanaag iyo Alla ka cabsi. Wuxuu ahaa injineer dowladda u shaqeeya. Wuxuu kafaalo qaaday hooyadiisa iyo walaashiisa markii aabihiisa uu dhintay kadib. Maalin ayaa waxaa lagu kadiyay walaashiisa oo 10 jir ahayd, taasoo soo gashay guriga ayadoo faraxsan. Kitaabka ay wadatay ayay ka soo bixisay lacag aad u fara badan, waxayna tiri macallimadda ayaa abaalmarin ahaan ii soo siisay lacagtan maadaama aan xifdiyey kalabar Qur'aanka. Walaalkii lacagta ayuu ka qaaday, wuxuuna yiri lacagtan waa lacag aad u fara badan. Waxaa laga yaabaa macallimadda inay aragtay faqrigeena, sidaas darteedna ay noogu caawisay lacagtan, bal biri aniga ayaan ku raacayo si aan u soo ogaado waxa jira. Walaalkii wuxuu tagay madrasada, maamulka ayuuna ka ogaaday macallimadda inay goor dhow jaamacadda ka soo qalin jebisay, iyo in ay tahay mid wanaagga looga daydo, dadkana ay caawiso, maadaama ay ka soo jeedo qoys lacag leh. Markii uu la kulmay macallimadda, wuxuu arkay inay tahay mid aad u qurux badan. Kadib macallimadda ayaa u sheegtay walaashiisa inay u qalanto abaalmarinta, maadaama ay tahay gabar aad u caqli badan, fahankeedana uu fiican yahay. Walaalkii guriga ayuu ku soo laabtay, qalbigiisana macallimadda ayuu qabsaday. Wuxuu Alle ka rajeeyay in uu ka dhigo ooridiisa. Kadib hooyadiisa ayuu u diray xaggii macallimadda si ay mowduuca ugu furto. Kadib macallimadda waxay ku tiri aabbahay ayaan idiin ballaminayaa. Kadib wiilkii iyo reerkiisa ayaa yimid gurigii macallimadda. Markii rabitaankooda ay u sheegeen macallimadda, reerkeeda markii ay ayagana faqri dartiisa ugu diideen, ayaa macallimadda ku adkaysay in ay aqbalaan guurkeeda. Guurkii waa uu dhacay, ooridiina si farxad leh ayay ugu dulqaadanaysay maciishada oo iska adag. Qoyskii maalin ayay booqdeen reerkii gabadha. Kadib ninkii waxaa lagu kadiyay sodogiisa oo ku yidhi, Alla ka cabso, naagtaada u keen digir iyo macmacaan kale, ka daa hilibkan iyo qudaartan aad ku wadid, waayo waa ay ka daashay. Ninkii hadalkan waa uu la yaabay. Kadib naagtiisa ayuu ka ogaaday mar walba oo ay booqato reerkeeda in ay soo hordhigaan hilib iyo qudaar, ayadana ay tiraahdo, aniga ninkayga waxba iima diido, hilib iyo qudaar sida uu iigu waday waan ka daalay, waxaan rabi lahaa digir ama macmacaan kale. Xaqiiqdana sidaas ma aha. Guriga ninkeeda markii ay joogto, hilib badanaa ma cunto. Waxaa la arkaa bishii hal mar in ay hilib cunto. Ninka waxa uu ogaaday naagtiisa markii ay reerkeeda aado, sharaftiisa inay kor u qaaddo, ayna ammaanto. Markuu taas ogaaday, jacaylka uu qabay naagtiisa waa uu kordhay. Wuxuuna Alle ka baryay inuu waafajiyo si uu ooridiisa u farxad geliyo. Muddo gaaban kadib, qoyskii Alle wuxuu ku irsaaqay wiil qurux badan. Ninkiina wuxuu ku guulaystay mashruuc uu diyaariyey. Kadib qoyskii wuxuu noqday qoys hanti leh. Ayagoo farxaddaas ku sugan, ayaa ooridii waxaa maalin lagu kadiyey gabar saaxiibadeeda ah oo u sheegtay ninkeeda mar walba ilaa xitaa saacado inuu la hadlo gabar magaceedu uu yahay Khadiijo. Ooridii aad ayay u tiiraanyootay. Maalin maalmaha ka mid ah, ninkeeda asagoo fadhiya dhinaceeda ayay tiri hal mar moobeelkaaga ii dhiib. Waxayna ka dhex aragtay magaca Khadiijo. Way naxday, waxayna weydiisay yaa waaye Khadiijadan. Ninkii waa uu dhoola cadeeyay, wuxuu yidhi wacay ayada weydii. Markii ay wacday, taleefankeeda ayaa soo dhacay. Markii ay fiirisayna, ninkeeda ayaa soo wacaya. Kadib waxay tidhi weli ma fahmin arrintan, waayo aniga magacayga Khadiijo ma aha. Wuxuuna ugu jawaabay asagoo ka masaxaya ilinta ka soo daadatay. Wuxuuna yidhi sifaadkaaga iyo dhimrintaada, naxariistaada iyo jacaylkaaga, iyo inaad ii cabsanayso waa sifaadkii ummul mu'miniina Khadiija bintu Khuwaylid oo kale. Allaha ka raali noqdee. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan Tarjumaad, subscribe saar, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelino.